Isticmaalka toobakada iyo sigaarka waxa uu dhintay in ka badan 8 milyan oo qof sanad kasta. 7 milyan oo dadkaas kamid ah waxa la sheegay inay tahay natiijada ka dhalatay cabista sigaarka iyo sidoo kale isticmaalka noocyada kala duwan ee toobakada. Halka la sheegay 1.2 milyan oo dadkaas kamid ah inay u dhintaan saameynta ka soo gaarta qaaca ka baxa sigaarka, laakiin iyagu aysan ahayn dad isticmaala sigaarka. Sidoo kale sigaarku wuxuu sababaa cudurro badan oo ay kamid yihiin kansar, wadne xanuun iyo sidoo kale cudurka istaroogga. Barnaamijkan ayaan kugu faahfaahin doonaa waxyaabaha uu ka kooban yahay sigaarku iyo sidoo kale sida uu halista ugu yahay caafimaadkaaga. Waxaana ka codsanayaa inaad barnaamijkan share gareysiin si uu u gaaraan kumanaan qof uguna noqdo digniin. Ugu horreyn waxaan ka codsadaa bogga Caaran News inaad follow dhahdid intaan warbixinta bilaabin. Sanadkii tagay 2022 dadka isticmaala sigaarka ee ku sugan daafaha caalamka waxa ay gaarayaan 23% tirada guud ee dadka ku nool caalamka. Waxaana la sheegay in inta badan ay yihiin rag, halka lagu qiyaasay 7.8 oo kaliya dumarka isticmaala toobakada adduunka. Cabista sigaarku waa mid ka mid ah khataraha ugu waaweyn ee caafimaad ee bulshada adduunka ku nool maanta wajahayso, kaasi oo dilay in ka badan 8 milyan oo qof sanad kasta oo ay ku jiraan ku dhawaad 1.2 milyan oo dhimasho ka dhalatay gaarista qiiqa sigaarka dad aan cabin. Dhammaan noocyada toobakada waxay leeyihiin waxyaalo halis ah, mana jiro sigaarka caba ama adeegsada noocyada kala duwan ee toobakada oo ay suuragal tahay inuu ka badbaado khataraha ka dhalan kara. Toobakada adduunka lagu isticmaalo waxaa la sheegay in ka badan 80% in dadku u adeegsadaan qaab sigaar ahaan, halka dadka toobakada sida caadiga u cunana ay gaarayaan 20%. Marka la isku soo duubo dhammaan dadka isticmaala sigaarka iyo sidoo kale toobakada waxa ay gaarayaan 1.3 bilyan oo qof, waxayna ku nool yihiin dhammaan inta badan wadamada dhaqaalahooda hooseeya iyo sidoo kale kuwa dhaqaalahooda dhexdhexaadka yahay, halkaasi oo ah meelaha ugu badan ee ka dhacda dhimashada ugu badan ee sababaan sigaarka iyo sidoo kale cunista toobakada. Isticmaalka toobakada waxay qayb weyn ka qaadataa faqriga iyo qarashadida qoyska, iyadoona qarashka qoyska leexisa baahiyaha aasaasiga ah sida cuntada, hoyga iyo dhammaan wax kasta oo qofka noloshiisa muhiim u ah. Wuxuuna fokus saaraa sidii uu heli lahaa toobakada iyo noocyada kala duwan ee balwadda isbedelkii uu qarashkiisa ku bixi lahaa wax faa'iido u leh. Dalalka caalamka inta badan waxaa la kantaroolaa awoodda noocyada toobakada iyo sigaarka lagu dhex isticmaalayo iyadoona la dhimo maadooyinka ka kooban yihiin. qiiqa toobakada oo ah qiiqa ka soo baxa sigaarka gubanaya ama sidoo kale toobakada la duubay wuxuu uu saameyn weyn u geystaa qof kasta oo gaaro, waxaana la sheegay in sanad kasta ay u dhintaan 1.2 milyan oo qof. qaacan kaliya ma jiro marka sigaar cabuhu uu sii daynayo, laakiin waxa uu ku faafaa uu ku dhagaa darbiyada iyo sidoo kale dharka, sidoo kale waxa uu raacaa hawada, mana jiro si sahlan oo looga saari karo. Haddii qaacad uu soo gaaro ama aad kaga dhawaato qof sigaarka caba, waxaa khatar ugu jirtaa inay halis naftaada geliyaan 4,000 oo kiimikaaliska ay ku jira. Xogtaana waxaa sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka sanadkii tagay ee 2022, waxayna hoos ka xariiqday hay'adda caafimaadka adduunka inay muhiim tahay in dadka sigaarka caba iyo dadka aan sigaarka cabin la kala saaro si loo badbaadiyo nolosha iyo caafimaadka dadka aan sigaarka cabin. Dadka adeegsada sigaarka iyo noocyada toobakada waxay isku dayaan inay iska daayaan, laakiin isku dayadaas ma guuleystaan oo kaliya waxaa la sheegay inay guuleystaan 4%, waxaana sababta lagu sheegay maadada nicotine oo ah maadada dadka toobakada isticmaala ama sigaarka caba ay qabatimaan, taasi oo aysan awood u yeelanayn inay iska daayaan. Cabista sigaarku waxa ay sababtaa cudurro halis ah oo aan macquul ahayn inuu qofka caba ka badbaado inta badan, waxaana cudurradaas kamid ah kansarka, wadne xanuunka, cudurrada sanbaabaha iyo sidoo kale cudurkan loo yaqaan neefta. sidoo kale waxaa la sheegay inay khatar ku tahay aragga indhaha oo mararka qaar aragga indhaha lumo. Cunista toobakada aan ahayn sigaarka iyadana waxay sababi kartaa noocyo badan oo kansar ah oo isugu jira kansarka afka, ciridka, caloosha iyo hunguriga iyo cunaha. Sidoo kale waxay kansar ku sababi kartaa kaadi haysta. Isticmaalayaasha aadka u culus oo kuwa da'da ah waxa kale oo laga yaabaa inay ogaadaan in ilkahooda bilaabaan inay daataan, sidoo kalena ay wasakhayso toobakada ay cunayaan, taasi oo sababi karta in sidoo kale uu ku soo haro ciridka oo bilaa ilka. Toobakada waxay ka kooban tahay maadooyin badan, waxaana kamid ah maadada nicotine, carbon monoxide, tar iyo kiimikaalis kale oo sun ah sida benzene iyo sidoo kale formaldehyde. Maadada nicotine waa maadada sababta u ah inuu qofku la qabsado isticmaalka noocyada kala duwan ee sigaarka iyo sidoo kale toobakada, awoodna uu yeelan waayo inuu iska daayo. Carbon monoxide waa gaas sun ah kaasi oo ku jira qaaca sigaarka, mana ahan maado lagu talagalay in qofka sida caadiga jirkiisa gasho. Carbon monoxide markuu jirka galo wuxuu qasbayaa wadnaha inuu aad u shaqeeyo, sidoo kale sanbabaha ayay saameyn ku yeelanaysaa oo waxay noqonayaan sanbabaha kuwo aan si sax ah u shaqeyn. Haddii wadnaha shaqadiisu badato, sanbabaha shaqadoodana hoos loo dhigo, waxa khatar weyn ugu jirta in wadnahaagu istaago. Sidoo kale waxaa la sheegay in unugyada jirka ka joojisa in ay gaarto oksijiinta ay u baahan yihiin, maadaama sanbabaha iyo wadnaha ay si fiican isula shaqeynayn. Tanina waxay keeni kartaa wadne xanuun iyo dhiig kar. Maadada kale lagu magacaabo tar waa maado khatar ah, waana maadada sababta kansarka sida caadiga ah. Sidoo kale maadadan waa mid si la arki karo u muuqata, qofka sigaarka caba afkiisa iyo ilkiisa ayaa laga arki karaa. Waa maado midabkeedu yahay bunni ama huruudi, waxay ciriirisaa markay gudaha gasho sanbabaha, gaar ahaan waxay ciriirisaa tubooyinka loo yaqaano bronchioliska, kuwaas oo kuwa ka qayb qaata neefsashada qofka. Sidoo kale waxaa la sheegay inay wasakhayso feeraha iyo sidoo kale sanbabaha qofka, taasi oo keeni karta in mararka qaar feeraha burburaan.